isniin 3 bisha February sanadka 2025 wararka ugu waaweyn ee dunida saaka idiga haynana waxaa ka mid noqon doona wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaza iyo sidoo kale daanta galbeed ee la haysto Yahuuda oo dhulka dhigtay magaalada Janiin xasuuq xoogan ayayna halka ka geysatay si lamid ah Gaza kooxda Hamas waxay ku dhaaratay inay 10 kale u dhigi doonto Israel kadib fashil ku yimid in uu furmo wajiga labaad ee heshiiskii xabajoojinta hore loo gaaray ra'iisul wasaaraha Yahuudana waxa uu baxsaday dhinaca waddanka Mareykanka Qatar iyo Masar war culus ay arrinta ka soo saareen maxaan ka ognahay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Masaarida ee calooshadu shaqaystayaasha ee Gaza ku sugan wararkeena kale waxaa ka mid noqon doona Iran oo sameynaysa dhowlatusyo military iyo soo bandhigida hub casriya mar kale ay tijaabisay gataalo burburi kara Yahuuda Kuuriyada waqooyiga hanjabaad dagaal ay u dirtay Kuuriyada Koonfureed qodobadaas ayaan ku falaqay doonaa daawadayaal barnaamijkeena subaxnimo ee wararka caalamka ee warbixinada dunida ayna ku bilaaban Yahuuda ayaa duqeysay xerada qaxootiga magaalada Janiin waxayna burburisay dhammaan dhismayaal ay deganaayeen dad shacab taas oo qayb ka ah howlgal ay ku sheegtay inuu yahay mid ballaaran oo ay ka wado daanta galbeed ee la haysto muuqaalo ay dadka deegaanka ku baahiyeen baraha bulshada ayaa muujinaya dhul ballaaran oo kaamkaas oo ay ciidamada Yahuuda burburinayaan wakaalada wararka waafa ee waddankaasi ee Falastiin waxay sheegtay in ciidamada Yahuuda ay isku mar qarxiyeen ku dhawaad 20 dhismo oo ku yaala dhinaca bari ee xerada magaalada Janiin kadib markii ay ku xireen walxaha qarxa agaasimaha isbitaalka weyn ee dawladda ee magaalada Janiin oo la hadlay wakaalada wararka waafa waxa uu sheegay in qayb ka mid ah isbitaalka ay waxyeello xoogan ka soo gaareen qarxida ilaa hadda lama soo sheegin inta loo yahay qasaaraha shalay ciidamada Yahuuda ayaa nin Falastiiniya oo 73 sano jir ku toogtay gudaha magaalada Janiin ururka bisha cas ee reer Falastiin waxay sheegeen in shaqaalahooda ay ka soo saareen halkaas meydka ninkan waayeelka oo ay ciidamada Yahuuda dileen sida laga soo xigtay wakaalada wararka waafa cagafyada Yahuuda ayaa dhulka la sameeyay ilaa 100 guri oo ku yaala xerada iyadoo isbitaalada maxalliga ay soo fosaartay sidoo kale biyo la'aan daran kadib markii ciidamada Yahuuda ay waxyeello xoogan u geysteen doomihii dhinaca biyaha qiyaastii 35% dadweynaha magaalada ma heli karaan biyo ay sheegayaan in wareegida halka ka imaanaya tan iyo bilowgii dagaalka Gaza 7 Oktoobar 2023 askarta Israel ayaa weerar xoogan ka geysanaya daanta galbeed ee la haysto boqolaal qof ayayna halka ku dileen sidoo kale axadii shalay dad Israa'iiliyiin ayaa dab qabadsiiyay masjid ku yaala deegaanka Arab al-Mayhad oo waqooyi ka xiga magaalada Jericho ee daanta galbeed ee la haysto mid ka mid ah dadkii ku sugnaa masaajidka ayaa sheegay in dadka Yahuuda ee aad ku hubaysan ay waxa gubanaya masaajidka qabadsiiyeen ka hor intaysan gabi ahaanba wada gubin dabkaas ayaa baabiiyay wax walba oo yaala masjidka xitaa kitaabadii Quraanka Kariimka dhinaca kale galka dambe ee shalay ciidamada Yahuuda ayaa dhowr jeer waxay jabiyeen heshiiskii xabajoojinta Gaza ayagoo dilay wiil yar oo reer Falastiin kuwa kalena ku dhaawacay kadib weerar cirka ah oo ay la beegsadeen baabuur rayda oo maraya wadada Rashiid ee waqooyi galbeed ee xerada Nusayraad ee bartamaha magaalada Gaza sida uu baahiyay TV-ga Al Jazeera wariyaasha Al Jazeera ayaa ku warramaya in diyaaradaha duuliyaha lahayn ee Yahuuda ay laba gantaal ku dhufteen gaari goobta marayay taas oo argagax ku beertay dadka rayidka kuwaas oo inta badan wadada u isticmaalayay maalin kasta inay u safraan dhinaca waqooyiga magaalada Gaza goobjoogayaal ayaa sidoo kale u sheegay wakaalada wararka ee Anadolu in qof rayid la dilay kuwa kalena la dhaawacay Yahuuda ayaa marar badan ku xadgudubtay heshiiska xabajoojinta ee hore loo kala seexday dhinaca kale kooxda Hamas ayaa fariin culus u dirtay Israel xilli ra'iisul wasaaraha maamulka Benjamin Netanyahu uu orday dhinaca Washington oo kula kulmi doono madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump Hamas waxay muujisay inay dagaal diyaar u tahay xilli la filayay in maanta ay bilowdaan wajiga labaad ee heshiiskii amaba wada hadaladii heshiiska xabajoojinta ee Hamas iyo sidoo kale Israel mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee kooxdan ayaa uga degay Israel inay dib u dhigaan wada xaajoodka isagoo carabka ku adkeeyay in kooxdooda ay diyaar u tahay dagaal Tahir al-Nuno oo ka mid ah madaxda sare ee kooxda Hamas waxa uu sheegay inay ku taagan yihiin heshiiska xabajoojinta ee la gaaray laakiin taas aysan ka macno ahayn inaysan dagaal diyaar u ahayn waxaan u nahay diyaar inaan la dagaalno cadowgeena haddii ay fahmi waayeen luuqadda wada hadalka ayuu Al Jazeera u sheegay al-Nuno wuxuu carabka ku adkeeyay in kooxda Hamas ay hadda si buuxda u maamulayso magaalada Gaza xataa kadib dagaal 15 bilood soconay al-Nuno waxa uu tilmaamay in dadka reer Gaza ay dareemayaan guul weyn maadaama maxaabiis muddo dheer ay Yahuudu haysatay loo sii daayay si weyn loogu soo dhaweynayo magaaladoodii oo ay la kulmayaan dadkoodii muuqaalada maxaabiis islaafsiga ayaa sidoo kale ku cadeynaya inuu sareeyo awoodda iyo moraalka kooxaha iska caabinta ayuu yiri sargaalkan ka tirsan Hamas oo ku maadeystay Israa'iil oo ku guul daraysatay hadafkoodii ahaa inay burburiyaan kooxdan kadib dagaalkii Gaza ku qaaday Tahir al-Nuno ayaa dhinaca kale sheegay in kooxdoodu ay sii wadi doonto inay maamulaan magaalada Gaza xilli ay dowladda Falastiin oo hogaamiyo Maxamuud Cabbaas ay dhinaceeda sheegteen inaysan aqbali doonin heshiis wada qaybsi inay la galaan kooxda Hamas si kastaba maanta Isniin ayaa la filayay inay bilowdaan
wadahadalada wejiga labaad ee heshiiska xabajoojinta. laakiin ra-iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu ayaa u baxay dhinaca maraykanka isagoo Donald Trump kala tasha doona tallaabooyinka kale ee u qaadi doono si ay usii socdaan wadahadalada. ra-iisul wasaaraha waddanka qatar sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani ayaa waxa uu ugu baaqay israa'iil iyo xamaas inay bilaabaan shaqada wejiga labaad ee heshiiska xabajoojinta ee Gaza. waxaan hoosta ka xariiqaynaa muhiimadda ay leedahay in dhammaan dhinacyada ay ka go'an tahay in la fuliyo dhammaan qodobada heshiiska xabajoojinta ee Gaza iyo in la bilaabo wejiga labaad ee wadahadalada, ayuu sheegay kadib shir jaraa'id oo ay si wadajir u qabteen wasiirka arrimaha dibadda waddanka Turkiga Hakim Fidan. waa inaysan marnaba dhicin wax tanaasula in laga galo sii socoshada wadahadalada wejiga labaad, ayuu hadalkiisa raaciyay. bin cabdiraxmaan waxa uu tilmaamay in wadaxaajoodka wejiga labaad ee heshiiska Gaza la qorsheeyay inuu furmo maanta oo Isniin, laakiin ma jiraan tafaasiil cad oo ku saabsan imaanshiyaha wafuudda iyo bilowga wadaxaajoodka. waxaana rajaynaynaa inaan aragno xoogaa dhaqdhaqaaq ah maalmaha soo socda, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda waddanka qatar oo dowladdiisu ay hormuud u ahayd wadahadaladii socday. ra-iisul wasaaraha qatar ayaa carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in labada dhinac ay ka go'an tahay in si niyad sama ay uga qayb qaataan wadahadalada iyo sii socoshada heshiis la gaaro. dowladda waddanka Masar ayaa iyadana waxay si weyn u doonaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaqangeliyo qorshayaasha xiga ee heshiiska xabajoojinta ee horey loo gaaray. haddaba in dib loo dhiso magaalada Gaza oo la burburiyey waxay qaadan doontaa muddo dheer. dowladda Masar waxay sheegtay in ay leedahay aragti cad oo ku saabsan dib u dhiska marayka Gaza ee dagaalka uu aafeeyey, iyadoo aanan Falastiiniyiinta laga barakicin dhulkooda sida uu yahay qorshaha yuhuudda iyo madaxweynaha waddanka Maraykanka Donald Trump. dadaalada Masar ee ku saabsan Gaza waa kuwa sii socon doona, mana joojin doono xataa haddii ay shuruudo waaweyn yimaadaan. waana in sidoo kale la dhaqangeliyaa heshiiska xabajoojinta, gaar ahaan saddexdii marxaladood ee lagu heshiiyey. wasiirka arrimaha dibadda ayaa sidaa ku sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Qaahira, isagoo garab taagnaa wasiirka arrimaha dibadda waddanka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. waxaan leenahay aragti cad oo ku saabsan in dib u dhiska marayka Gaza ay tahay mid muhiima, iyada oo uusan hal muwaadin ka bixin dhulkiisa. Trump ayaa soo jeediyey dhammaadkii toddobaadkii hore in Falastiiniyiinta ku sugan Gaza loo raro Masar iyo Urdun, isagoo ku tilmaamay go'aankaas inuu yahay mid xal u ah dadka reer Gaza. si kastaba soo jeedintiisa ayaa waxaa gabi ahaanba ku gacanseeray dowladaha carabta. 6 waddan oo wadamada carabta ayaa sabtidii magaalada Qaahira markay ku shireen waxay si adag u diideen in barakic lagu sameeyo shacabka reer Gaza, waxaana ay cusboonaysiiyeen baaqiyoodii ku aadanaa dhaqangelinta xal laba dowladooda oo laga gaaro colaadda Israa'iil iyo sidoo kale Falastiin. iminkana aynu fiirino maxay yihiin ciidamada Maraykanka iyo kuwa waddankaasi Masar ee ku sugan magaalada Gaza. Maraykanka ayaa ciidamo u diray Gaza, waxaana ciidamada la socda kuwo kale oo calooshoodu shaqaystayaal oo ka soo jeeda waddanka Masar. xogo ay saxaafadda baahisay waxay muujinayaan sawirada ciidamada Maraykanka iyo calooshoodu shaqaystayaasha ee ku sugan wadada muhiimka ee Zarim la yiraahdo, halkaas oo kala qaybisa waqooyiga iyo koonfurta Gaza. wakaalada wararka Reuters ayaa warisay in raggan oo aad u hubaysan ay ku sugan yihiin wadadaas, isla mar ahaantaana Maraykanka uu lacag fara badan ku siinayo sii joogitaankooda ama ku sugnaanshahooda goobtaas, waxaana ay maalintii mushaar ahaan u helayaan 1,000 ilaa 10,000 oo dollar lacag u dhaxaysa si ay magaalada Gaza u joogaan. calooshoodu shaqaystayaasha ayaa kor kala socda dadka reer Gaza ee guryahooda ku laabanaya, gaar ahaan kuwa u gudbaya waqooyiga magaalada Gaza. warbixinada ayaa sheegaya in Maraykanku uu xal u arkay in wadadan Netzarim la yiraahdo uu geeyo ciidamadan calooshoodu shaqaystayaasha ah si loo sugo ammaanka dhinaca Israa'iil. ciidamadan oo ah kuwa aad u hubaysan waxay hoos tagaan shirkado gaar ah oo dhinaca ammaanka Maraykanka, ayuu tabiyey wargeyska Times of Israel oo cadadkiisii axadii warkan ku soo baxay. wakaalada wararka Reuters ayaa iyadana warisay in ciidamada Maraykanka iyo kuwa Masar ee la geeyay Gaza inay ka qayb ahaayeen qorshayaasha heshiiskii xabajoojinta ee la gaaray. wakaaladan wararka ayaa warisay in ciidamadan ay hubinayaan inaan wax xuba lala gelin waqooyiga magaalada Gaza, sida qorshaha uu yahay. ciidamadan ayaa halkaa ku sii sugnaan doona ilaa uu dhammaanayo wejiga ugu dambeeya heshiiska xabajoojinta ee horey loo gaaray. si kastaba dad ka badan 800,000 oo qof ayaa ku laabtay waqooyiga Gaza maalmo kadib heshiiska xabajoojinta ee dhaqan galay 19 January, kadib 15 bilood oo dagaal ah oo ay ku dhinteen dad ku dhow 50,000 oo shacab reer Falastiin. warqad TV wali nagala socotaan wararkii warbixinadii dunida. iminkana waddanka Iran haddaynu fiirino, madaxweynaha waddankaasi Iran ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada dowladdiisa ay si weyn u diyaar garoobeen xilli ay wajahayaan in ay ka hortagaan Yuhuudda iyo sidoo kale Maraykanka. madaxweyne Masuud Pezeshkian ayaa iftiimiyay awoodooda ciidan, iyadoo waddankaas hurdaha ka rogay 3 dayac-gacmeed oo cusub iyo sidoo kale gantaalo balaastikada.
xuska maalinta teknolojiyadda hawada sare ee qaranka ee wadankaasi Iran oo axadii shalay ahayd ayaa madaxweynaha wadanka waxa uu kaga qayb galay xaflad ka dhacday wasaaradda warfaafinta iyo teknolojiyadda halkaas oo lagu soo bandhigay 2 satellite oo kuwa fogfoga iyo sidoo kale dayax gacmeedka isgaarsiinta nafaaga oo ayagana halka lagu soo bandhigay madaxweynaha wadankaas wuxuu sidoo kale booqday bandhig iyo dhoolatus ee lagu muujinayay guulihii ugu dambeeyay ee ciidamada difaaca wadankaasi Iran oo ay ku jiraan in la soo bandhigay qalabka hawada sare ee dayax gacmeedka iyo sidoo kale nidaamyada hagitaanka oo ay weeliyaan nidaamyada gantaalada difaaca wuxuu kormeeray oo uu furay gantaal cusub oo plastic ah oo lagu magacaabo Etamaad oo masaafo dhan 1700 oo kiiloomitir jari kara gantaalkan oo dhererkiisu yahay 16 mitir halka dhexroorkiisuna uu yahay 1.25 mitir wuxuu baabi'in karaa bartilmaameedyada loo diro intii lagu guda jiray dhoolatuska sidoo kale Iran waxay soo bandhigtay nidaamyada habka difaaca gantaalaha gaar ahaan midka la yiraahdo Bafar 373 sawirada laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya baaxadda uu leeyahay gantaalkan difaaca hawada madaxweynaha wadankaas Iran waxa uu sheegay in awoodda difaaca ee wadanka Iran iyo dhinaca teknolojiyadda hawada sare si weyn loo hormariyay isla mar ahaantaana loogu talagalay ka hortagga dalalka kale ee cadowga ku ah isla mar ahaantaana qorsheynaya duulaan ka dhana Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran horumarka Iran ee awoodda difaaca iyo teknolojiyadda hawada sare waxay u adeegtaa inay ka hortagto gardarrada waxayna damaanad qaadaysaa in wadana uusan ku dhicin inuu ku soo xadgudbo ciidda Iran ama xitaa uu ku fikiro ayuu yiri madaxweynaha wadanka Iran wuxuu hadalkiisa ku daray in kastoo cadowga isku dayeen inay Iran ku hor istaagaan inay cagaheeda ku istaagto haddana wadanka uu isku tashaday isla mar ahaantaana ay dhalinyaradiisa qubrada ah u soo saareen hub aad u casriya Iran waxay gaartay qaangaar dhinaca diyaaradaha xambaara dayax gacmeedka ayuu hadalkiisa ku daray Iran ayaa waxay u aragtaa cadowgeeda koobaad Yahuudda ayagoo sanadkii la soo dhaafay labada wadan ay isweydaarsadeen weerar xooggan oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac Iran ayaana burburisay xarumo muhiim ah oo dhulka Yahuudda ay xoog ku haysata ku yaala ay ku jiraan halkii looga talinayay sirdoonka maamulka Yahuudda imikana Kuuriyada Waqooyi haddaynu fiirino dowladda wadankaas waxay ku maadeysatay dowladda Koonfur Kuuriya kadib markii ay ku dhawaaqday inay hub ka soo iibsatay wadanka Mareykanka Kuuriyada Waqooyi waxay tilmaantay in ay aad u liidato Kuuriyada Koonfureed isla mar ahaantaana hubka Mareykanka aysan marnaba isaga difaaci karin Kuuriyada Waqooyi iyadoo Mareykanka ku eedeysay inuu xoojinayo in hub fara badan uu siiyo xulafadiisa Kuuriyada Koonfureed xukuumadda Pyongyang ayaa ugu yeertay dhigeeda Koonfurta Kuuriya in hubka la siinayo uusan marnaba ka tarjumaynin in ay soo gaaraan awoodda ciidan iyo midda hubeed ee Kuuriyada Waqooyi hay'adda iskaashiga amniga difaaca wadanka Mareykanka ayaa dhawaan ku dhawaaqday in hub ay ka iibinayso Kuuriyada Koonfureed kaas oo ku jiraan gantaalo iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee wadankaas Kuuriyada Koonfureed Mareykanka ganacsatada dagaal ee ugu weyn adduunka ayaa si ka badan sidii hore ugu shaqeynaya qorshaheedii iibinta hubka ee uu ka iibinayo Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu yiri warka lagu daabacay wakaalada wararka ee wadankaas Kuuriyada Waqooyi xukuumadda Pyongyang ayaa sheegtay in isha ku hayso iskaashiga militari ee u dhaxeeya Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka Kuuriyada Waqooyi waxay wacad ku martay isbuucii hore inay sii wadi doonto ka hortagga ugu adag ee ka dhanka Mareykanka ilaa iyo inta uu diidayo madax banaanida iyo danaha amniga ee wadankaas Kuuriyada Waqooyi wadanka Kuuriyada Koonfureed hadda waxaa ka jira qalalaasa siyaasadeed kadib markii madaxweynihii wadankaas xabsiga loo taxaabay ayada oo taas ay sidoo kale hoos u dhigayso awoodii ciidan ee wadankan uu kor ka ilaaliyo Mareykanka isla mar ahaantan ay ku sugan yihiin ilaa 20,000 oo askari oo ciidamada Mareykanka ah qodobkaas ayaa daawad lagu dambeeyay wararkii warbixinada dunida aan saaka idiga hayn